shir saxaafadeedkan waxaan u qabtay shir ka dhacay xalay magaalada Baran gobolka Sanaag runtii ma aysan mudnayn in laga hadlo maartay wixii xalay meeshaas ka dhacay laakiin haddana maadaama dad badan ay jiraan oo xogmoog ah oo dalka iyo dibadda jooga in lala wadaago waxa ka jira Highland iyo Sanaag iyo guud ahaan Puntland waa shay lagama maarmaan ah runtii xalay shirkaas waan dhageystay ragga ka hadlayeen rag aan si fiican u gargaranayo bay ahayd oo aan reer barmood isla nahay intooda badanna ay martay maamul goboleedka dawladda Puntland ay xilal ka soo qabteen waxyaalaha ay ka hadleen baan markaa rabaa inaan wax ka iraahdo koow horta waa u mahad celinayaa waxaan uga mahad celinayaa qof kasto meesha ka hadlay wuxuu yiri Puntland baan wax isku darsanay waa arrin guul ah way Puntland baan wax isku darsanay qof kasto hadlay oo meesha ka hadlay arrintaas ku dhawaaqay Puntland haddii wax la isku darsadeena dee meel lagaga baxay lama ogeyn Puntland markii wax la isku darsanay 1998 wax garadka aqoon-yahanka madax dhaqameedka siyaasiyiinta dhalinyarada reer Sanaag iyo reer Highland Puntland bay yimaadeen waxbay ka dhisteen iyagu intaas wada socda intaasi maadaama ay Puntland wax la ka dhisteen oo shucuubta reer Sanaag iyo reer Highland oo wada socda oo isugu jira intaas qaybado aan sheegay maanta in group intay qol galaan yiraahdaan waxbaan tabanaynaayo waxa weeyaan urur baan sameeynaa badbaado maakhir oo waxyaalo iska wahmi ah oo dadka muddo lagu maaweelinayay in hadda dib loo soo barkeeyo wax sax ma ah runtii qofku hadduu xildhibaan ahaa ama wasiir ahaa ama gudoomiye gobol ahaa ama mid degmo ahaa ama ay xil kasta oo Puntland uu ka hayay haddii maalinta uu waayo labay noqdaan dadkaas qof wuxuu u arkaa kursigan inuu meerto ahaa waqtigiisii inta kaga ekaa inuu dib u soo alamiteeyo oo shaqadii reer Puntland mar labaad doorku ka qaadan lahaa siyaasadda meeshu ka gali lahaa oo ka qayb qaato qofna wuxuu bilaabaa kicinta iyo duminta dadka maartay reer Puntland dadkaas waa dad farqu tiris ah runtii saxna ma aha shacabkuna uu arki karaa qofkaas oo maadaama qofku uu hore xilal uga soo qabteen Puntland qofku markasta wuxuu isweydiinayaa markii qofkan xilka uu hayay intaas oo sano hayay tusaale ahaan ama muddo badan buu hayay muxuu xil markii xilka uu hayo qofkaasi uu shaqada hadda uu ka hadlay uu qaban waay saas baa sax moogta taasi waa qodob arrinta labaad oo iyana meesha ku jirta waxa weeyaan oo hadallada kamid ahayd dad baa waxay yiraahdeen madax dhaqameedya Puntland wax ka dhisay oo markii hawsha inagu hogaaminayay madax dhaqameedkii way burbureen runtii arrintaas ceeb iyo aflagaaday bay ku tahay madax dhaqameedkii Puntland waa jiraan khaasatan waliba reer Sanaag madax dhaqameedkoodu waa u jiraan mana burburin in la ceebeeyana ma mudna waxay mudan yihiin in la amaano shaqadii ay soo qabteen haddii la damco Puntland in dib ay reer Sanaag iyo reer Highland ay uga tashadaan intii hore wax ugu dartay baa ka tashanaysa maaha in qol yar inta la galo halka laga soo qayliyo sax ma asaas madax dhaqameedkii culimadii siyaasiyiintii aqoon-yahankii dhalinyaradii ummadii markii hore masiirkan ummadda Puntland go'aan ka gaadhay inay wax la dhistaan ummaddu baa isu imanaysa ummadda reer Sanaag iyo reer Highland waa Puntland in marba maartay mikrofon yar meel laga soo hadlo sax ma aha arrinta saddexaad waxaan la hadlayaa dadka qurba joogta ah runtii qurba joogtu waa dadka maartay badbaadiyay markii qax u dhacay oo masaarifaha iyo kuwada baahan iyo kuwada wax baranayo iyo ka qayb qaatay waxa la rabaa dadkaasi marka dadka dalka jooga waala oo marba wax u sheegaan saxayn waxaan leenahay dadka qurba joogta ah dad wanaagsan baa tihiin dad reer Puntland ah tihiin dad dalka wax ka dhistay baa tihiin maanta in marba project la idin soo sameeyo oo maartay wax la idin soo sheego oo aad run u qaadataan sax maaha maanta dadkiina baahan badbaadiya kuwa sooman afuriya kuwa agoomaha ah ciidsiya laakiin wax aydan aakhirana wax ka heleynin adduunkana waxba idin ka soo kordhaynin in laga ilbaxal raba Soomaalidu xitaa qurur xis aare qurur xis kama ilbaxo
dadka qurba joogta ah ee reer Sanaag iyo reer Highland waa dad ilbax ah runtii aan jecelnahay waxa weeyaan laakiin dad jacayl iyo yiin geysanin waxyaalaha dadka qaybtooda sheegayaan oo aan sax ahayn taasina waa taas runtii qodob kale aan inaan ka hadlo waxa weeyaan deeqaha iyo dhaqaalaha hadaladii bay kamid ahayd meesha la soo sheegay runtii Puntland wax allaaliyo wixii goboladaas ay xaq u leeyihiin maalin ma dudsiinay kharaj laga fahmana ma fiicna anigu waagi hore fahamkaas markaan xagga joogo amsan laakiin markaan gobolada Puntland oo dhan wada maray waxaan arkay gobolkaasi in loo subburiyaba maanta mashruuci ugu weynaa ee Puntland ka socday waa wadada Ceel Daahir Ceer Gaabo Ifrim Matli wasaaradda maaliyaddu lacag bixisa bil walba way joogtaa waan kala go'o lahayn waagi dhawaato waa tii loo qareemay dad kale cid matasha Puntland oo Sanaag ma joogto taalafteedu waa meel ka dhac siyaasiyiinta reer Sanaag iyo Highland oo Puntland jooga meel laga dhacayo haddeer maalin dhawaato waa taa ogeedeen xildhibaanadii baarlamaanka Puntland lacagtii ay ugu deeqeen wadada ay wareejinayeen maxaan ku raahday hadda dhawaan anigu waa tigay gobolka weligeed ma dhicin xataa xukuumadda ina siyaad barree ciidan 400 ah oo magaalada dhexmara oo reer barmood ah oo baanboodin wata oo tababaran oo maxaan ku raahday maanta cadow dabdeed iyo mid gudud iska celin kara runtii arrin guul ah horumarkii baa socda waxaan ka yaabanahay hadda intaan maamulkan cusub ee Puntland hadda ka hirgalay Saciid Cabdullaahi Deen hogaaminaya intaanu imanin xarunta degmada waxay ahayd kare xarunta gobolka waxay ahayd karo oo maxkamaddu waxay ahayd karo oo saldhigu waa baaba'sanaa hadda markii anigu baran aan tagay saldhigi waa soo dhagax dhignay oo shaqadii waa socotaa hadda dhismi baa ku socda maxkamadda dhismi baa ku socda xaruntii dawladda hoose oo ridwaaba la dhameeyay shaqadii baa ku bilaabatay tii gobolka sidoo kale jeelkii ummadii isku tashatay waa la shaqaysanaya taliye qaybada cusub baa la geeyay barasa baa loo magacaabay goladiigan baa laga dhisay macnaha waxay leeyihiin xataa ku khaldameen dadkii la joogay oo maamulka ahaa bileeyin wax jira ma ah taas sax ma ah ummadda waxaan leenahay la iska horkeenin dadkaas fakshanka ah oo hadda halkaas ka soo hadlayana waxaan leeyahay ummadda dhibaataha u geysanina ummadda waa ummadiini waa dalkiini kicinta beenta laga daayo ummadda kicinta beenta laga daayo waxaan inta ku darayaa runtii qoladan dhaqdhaqaajisa qolyahaasi ma aha qolyo gudaha oo qolyo aan iska rareeno qolaan arkay amaanaysa oo ka hadlaysa xamar iyo federaal iyo maamulo koonfur jira iyo waxa iska hadlaya Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hashi nin geel jira abaari haduu geel raaci jiray oo geel kale u aado wuxuu kororsadaa hasha magaceed adiga oo Puntlander ah oo deegaankay ku nool oo sharaf ku nool inaad maanta maamulkii federaalka ahaa oo hadda waqtigiisa oo dhamaadayba inay marba xoogaa shilimaad intay soo tuuraan yiraahdaan meel tago oo qayliya waxa sax ma qolada federaalka waxaan leeyahay ummadda tan intii aad joogteen wax u umaydan qabanin wax u qabateen ma laha ummadda tan wax uma qabanin wadooyin biina u dhisin mashaariic horumarineed biina geenin biyadin ka soo saarinin waxba ma idin qabin reer Puntland baa isku tashaday haddii sida idinku aad ugu tiirsan tihiin hay'adaha maartay deeqaha caalamka ugu tiirsantii aan ugu tiirsanaan lahayn sidii beelay yiri sagxadaan nahay baa xasan shire abgaal wuxuu oran lahaa sagxadaan nahay annagu ciidamada Puntland dibad lagama beelo waa dad isku tashaday reer Puntland ciidamadooda iyaga beela dawladooda maartay iyaga mushaharadooda siiya maanta deeq caalam aanu ku xidhannahay ma jirto dad isku tashaday baanu nahay waan wax laga naxo weeye in dawlad ku tiirsan in wax la siiyo waa sax ma reer Puntland waa dad isku tashaday ciidamadooda mushaharka siista dawladeeda mushaharka siista cid walba waxay u baahan tahay horumarkeeda ka shaqeysata idinka oo maanta saxada taagan inaad wax shilinkii dibadda idinka soo ururiyay aad qoliyo halka jooga inta u dirtaan tiraadaan saxaafad qabsada in maad reeyal sax ma waxaas waxaan oran lahaa qoladan federaalka ah war wixii aad qaban lahaydeen waa idinka dhamaatay dhaqdhaqaajinta hadda meelaha aad maartay dawladda Puntland aad ka qoryeynaysaa waxba idinma tarayso maanta waqtigiina waa dhamaaday doorasho diyaar garooba lacagta yar ee dibadda la idinka soo ururinayo ee aad marba tuulo u direysaan ka daayay ilmaad reeyal tii hore waxba idin tarweeday aad magaalooyinka waaweyn u diri jirteen qolada federaalkana saasaan leeyahay runtii waxaan u mahad celinayaa shacabka reer Sanaag iyo reer Highland
sida wanaagsan ee gobernimada leh ay markasta dawladooda maartay Puntland u garab taagan yihiin qurba joogtana taas aan leeyahay nimanka walaalahayo xalay shir saxaafadeed kala ku qabtay oo ururka ku dhawaaqayna waxaan leenahay joojiyo waxaas maartay aan dhaafsiisnay qolka aad xalay gasheen aan dhaafsiisnay iska daaya waxaan aad u la yaabanahay saxaafad baa la cuburiyo hadii cid la cuburinayo idinka xalay la cuburin lahaa magaalo Puntland ay ka taliso oo ciidamadeedii joogan oo maamulkeedii joogan baa waxa kaga dhawaaqaysay inaad xortihiin oo dimuqraadiyiin anaguna aanu nahay halkaas cadeynaysa Puntland ba hadda rag baa waxay Puntland ba hadda joogto baran bay leeyihiin oo hadii Puntland baran joogto may ka joojis waxa ku hadlaysa lagama joojin si xor ah u hadlaysa marka laakiin sidina xorta u hadla shucuubtana maartay dhibaato wixii u keenay laga ilaaliyo annaga hadii ay noo muuqato inaad dadka dhibaato ku tihiin talaabada saxda ah waa garan karnaa waan qaadanayna taasna waa taas dadka Puntland idin jooga oo Highland iyo Sanaag u joogana waa dad wax ku ool ah waa dad siyaasiyiin ah waa dad idinku iska soo xusheen waa dad soo doorateen maantana maartay horumarka ka socda gobolka waa markii koowaad ee sida hadda u dhaqaaqo marka waxaan oran lahaa insha Allah waa intaasna ugu sii dhawaan doonaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan idinkuna fahamku idinka khaldamin oo aad iska deysaan qaylada iyo buuqa aan macnaha darrada ah oo ummadda horumarkeeda aad qayb ka noqotaan waxa jira ururo siyaasadeed oo hadda Puntland laga asaasay kuwaas gala intaad federaal iyo ka shaqeynaysan meel kale ka shaqeynaysaan waa sax mid kale federaalka aad leeyihiin federaal baan inaan ka mid noqono oo yaa diiday federaal laga mid noqdo federaal baan ka mid nahay waa ku celcelinaynaa Soomaaliya qayb ka nahay annaga dhisnay diyaar baan u nahay waligeey ka go'aymeeno dadka yagii iyo dhaqaalaha yagii baa galay dhiig shacabka yagii baa maarta ku dhintay Soomaaliya annaga soo kicinay annaga garab taagnayn walna waa garab taagnaanayna cid Soomaali ka go'aysan ma jirto hadda waxaan oran lahaa idinkuna waxa aad leedihiin federaal baanu maarta kamid nahay war walaal annaga hore u sheegno waa kamid nahay annaga kamid ah idinka kamid ah inagoo dhan baa kamid ah saas bay uga simid ahaanayna ilaahay idinka waxaan rajaynayaa Soomaaliya in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo ra'iisul wasaaraha waxaan ugu hambalyeeynaa shaqada fiican hadda uu gacanta la galay iyo jadwalka insha Allah taala laga sugayo xilliga doorashadu ay dhacayso ilaahay idinka waxaan rajaynayaa saas bay maartay ku soo gabagabeynaa war saxaafadeedkayga waxaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambaliyo iyo maqfiro iyo dambi dhaaf iyo in la naarta ka xoreeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh mudana macmil nataayada sharciga ee kaafi waxay ku haysaa adeegyada sharciga oo dhammaystiran sida kala wareejinta hantida maguurtada iyo midda guurtada qorista heshiisyada qorista wakaaladaha guud iyo kuwa gaarka qorista dardaaranka iyo hibeynta iyo warqadda kale oo sharciga ogolaanshaha macmil warqadda lagu qoray nataayada sharciga ee kaafi waxay leedahay awoodda fulineed sida uu qorayo qodobka muwaadin hantidaada kula wareeg ama ku wareeji nataayada sharciga haddaba macmil hubso meeshay hantidaadu marayso hana aqbalin dukumentiya hadhow hantidaada murankaa gelinaya qoraalada nataayada kaafi ku haysa waxay leeyihiin awoodda fulineed nataayada kaafi waxay ka diiwaan gashan tahay wasaaradda cadaaladda Puntland waxayna ka howlgala sharci yaqaano khubaro dheer ku leh shaqada ay ku qabanayaan waxaan adeegsanayaan luqadaha kala ah Soomaali, English, Arabic, Turkish. xafiiska nataayada wuxuu ku yaalaa magaalada Qardho wadada hormarta bangiga dawladda macmil hamoogan nataayada sharciga ee kaafi